iska eeg ma leedahay astaamahan. kow ma tihid qof afkiisa haysan kara haddii sir lagugu aaminay aad adiguna kusii aaminayso qof kale. labo ma tihid qof u diyaara barashada casharada nolosha haddii qof kasta oo ka aragti duwani uu kula muuqdo cadowgaaga. saddex ma tihid qof wax dhagaysan kara haddii aad keliya u dhagaysanayso inaad markaaga hadasho. afar ma tihid qof dulqaad leh haddii aanad siin karin waqti aad ku sugto waxyaabaha aad xoogga u jeceshahay. shan ma tihid qof adkaysi leh haddii aad dhibsanayso wax kasta oo xilliga iyo qadarkuba keenaan. lix uma qalantid in lagu ammaano haddii aad keliya wax u qabanayso ha lagu ammaano. toddobo ma tihid qof naxariis leh haddii aanad u danqan karin qof aanay waxba idinka dhexayn laakiin agtaada ku dhibaataysan. siddeed doodaha waaweyn kama qaybgeli kartid haddii ay ku dhibayaan murannada maalinlaha ahi. sagaal ma tihid qof loo xiisi karo maqnaanshihiisa haddii aanad raad ku reebi karin qalbiyada dadka xilliga aad la joogto. toban uma qalantid in lagu jeclaado haddii aanad dareemi karin xanuunka uu marayo qofka ku jeceli. haddaba daawade imise astaamood ayaad iska heshay? haddii aad ka heshay muuqaalka inoo laygaree, sidoo kalena ha ku dhicin dabinkan. waxaad gelaysaa applicationka linkedin, waxaad leedahay dadka oo dhan horumar ayay gaareen adiga ma ahane. waxaad gelaysaa Instagram, waxaad isdhahaysaa dadka oo dhan waa ay safraan adiga mooyaane. waxaad gelaysaa Snapchat, waxa ay kula noqonaysaa in dadka oo dhan ay faraxsan yihiin oo ay raaxaysanayaan adiga mooyaane. waxaad gelaysaa Facebook, waxaad moodaysaa in dadka oo dhan ay nolosha fahansan yihiin adiga mooyaane. waxaad gelaysaa Twitter-ka, waxaad isleedahay adiga mooyaane dadka oo dhani waa ay shaqeeyaan. haddaba saaxiib waa inaad ogaataa intooda badan dadku waxa ay soo bandhigaan quruxdooda, waana inaad ogsoonaataa inuusan jirin qof fashilkiisa kula wadaagaya. haddii aad ka heshay muuqaalka inoo laygaree, sidoo kalena asxaabtaada kale u sheergaree. cilmu nafsigu waxa uu ku leeyahay kow mar kasta oo uu aamusnaadkaagu bato waa mar kasta oo hadalkaagu uu qiimo yeesho. labo dadka badankooda waa ay dhoolla caddeeyaan marka ugu horraysa oo ay la hadlayaan qof aysan horay u aqoon. saddex mar walba ha ilaawin hadalka uu ku yidhaahdo qofka marka uu xanaaqsan yahay, sababtoo ah qofka marka uu xanaaqo inta badan wax ma qariyo. afar mar kasta oo aad faraxsan tahay waa mar kasta oo aad hurdo yar u baahan tahay. shan qofka dareenkiisa qarsada waa uu ka danayn iyo jacayl badan yahay qofka mar walba dareenkiisa soo bandhiga. lix qofka uu xiriirku idinka dhexeeyo mar kasta oo uu bato kulankiinna waa mar kasta oo uu sii yaraado xiisihiinna oo aad iska xiisa dhacdaan. toddobo inta badan hablaha xoogaa yaro dheer ee haddana dhuuban ama caatada ah waa kuwa ka rag iyo shukaansi badan hablaha kale, sidoo kalena waa ay ka xiriir gaaban yihiin. haddii uu muuqaalkan ku soo gaaray inoo laygaree, sidoo kalena waxaan kaa codsanaynaa inaad koobi linkiga inoo taabato. mahadsanid.